بسم الله الرحمن الرحيم ومالين خميس لحية لاتنكا بيشا لبي طبناد لبدا كون يساقالي طبن وحاقب صومي شركي قولها وزيرة دا دولة بونتلان وشرق دوميي مدحوينها دولة بونتلان مداني سعيد عبد الله الدني وهليو مدحوينة كحيجين كدولة دا مداني أحمد علمي عثمان كراش arrimo dhowr ah ayaa shirka toddobaadkan looga hadlay oo ay ugu horeyso xaaladda guud ee amniga Puntland oo ay golaha la wadaagtay wasaaradda amniga oo ka warbixisay guud ahaan amniga Puntland iyo horumarada dhinaca amniga ah ee la sameeyay iyo qorshayaasha u yaala wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland ayaa iyana golaha la wadaagtay xog kooban oo muhiim ah oo maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan shaqo baaxad leh oo wasaaraddu ay qabatay taas oo ah diiwaangelinta iyo tirakoobka casriga ah ee lagu sameeyay shaqaalaha dawladda Puntland waxa ay soo bandhigeen tirada guud ee la diiwaan galiyay tirada lab ah tirada dhadig ah waxa ay sidoo kale ay golaha la wadaageen sida ay u hubiyeen in lala diriro musuqmaasuqa oo meesha laga saaro dadka aan shaqayn ama iyagoo maqan ama laba shaqo lacag ku qaata waxyaabo noocaas oo kale ah si ay taas meesha uga saaraan tirada saxda ah ee shaqaalaha ay soo gudbiyeen ay diiwaan galiyeen arrintaasi oo runtii golahu aad u bogaadiyay waxaana ay taasi ugu horeysaa siyaasadda ku salaysan tayeyn iyo tiigsi ee uu hogaaminayo madaxweyne mudane Saciid Cabdullaahi Dani in guud ahaanba Puntland la tayeeyo oo tiigsi fiican loo yeelo arrimaha kale ee golaha looga hadlay waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka ayaa golaha waxay la wadaagtay warbixin la xiriirta shaqooyin wacyigelin oo ay ka sameysay sidii dadka uga wacyigelisay xanuunka kaduudiyaha waxa ay golaha la wadaagtay qaabka uu u faafo iyo sidii ay dadka uga wacyigeliyeen iyo waliba sidii dadka ugu gudbiyeen in looga hortagi karo xanuunkaasi oo guud ahaanba iyo daraasaadka la xiriira iyo cilmi baarista ay ka sameeyeen xanuunkaasi iyo waxyaabaha keena iyo sida looga hortagi karo golaha wax la wadaagay oo lagu soo bandhigay qorshaha warbaahinta ee dawladda oo uu kamid yahay horumarinta jaraa'idka codka shacabka oo ay soo saarto wasaaradda warfaafinta oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada waxa uu noqonayaa toddobaadle qaabkan ayaana wajigiisa koowaad loogu soo bandhigay golaha jaraa'idkan waxa uu tabinayaa oo uu shaqeynaya guud ahaanba dadweynaha reer Puntland oo dawlad iyo shacabba wararkooda uu soo gudbinayo arrintaasina aad ayuu golahu u bogaadiyay horumarka dhinaca warbaahinta ee la sameynayo iyo qorshayaasha loo dajiyay ugu dambeynna wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay tayeynta waxbarashada ee ay wado oo uu kamid yahay mashruuca ifiye oo dhawaan lagu daahfuray oo mas'uuliyiinta wasaaraddu ay tageen Mareykanka lagu daahfuray mashruucaas ifiye waa qorshe jaaliyada iyo dadweynaha reer Puntland ee qurba joogta ah iyo guud ahaan Soomaaliyeed ay kaga qayb qaadan karaan horumarinta waxbarashada Puntland iyo caawinta ardayda ee reer Puntland iyadoo sidoo kalena la soo bandhigay oo wasaaraddu ay la wadaagtay golaha shaqooyinka kale iyo wadamadii kale ee mas'uuliyiintu ay booqdeen iyo horumarka laga gaaray dhinaca wada shaqeynta waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in nasiib darro weyn tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay wali wado ku celcelinayso dagaal ay ku wiiqayso hanaanka waxbarasho iyo horumarka dhinaca waxbarashada ee Puntland waxa u dambeysay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay joojiyeen shahaadadii oo ay u diideen ardayda reer Puntland haatanna ay arrintaasi u xayiran yihiin oo ay Muqdisho iyo Puntland gudaheedaba u joogaan hooyooyin waalid iyo caruurtooda oo arday ah oo shahaadadaasi rabay sidoo kale waxa kamid ah dagaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso Puntland ee dhinaca waxbarashada inay meelihii dhinaca waxbarashada ee wada shaqeynta Puntland ay la lahayd ay waraaqa u direen oo ay ku hor istaagayaan horumarka waxbarashada Puntland waxaana kamid ah dalka Masar oo dhawaan uu arrintaasi darteed isna u tagay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland si arrimahaasi wax looga qabto dhaqamada noocaas
noocaasa waa kuwa muujinaya in lala dirirayo Puntland dhinaca horumarka waxbarashada dabcan waxayna ay liddi ku yihiin shuruucda dalka ka jirta ama dastuurka ku meel gaarka ee federaalka Soomaaliya iyo heshiisyadii hore heer dawlad federaal iyo dawlad goboleed baa loo galay waxyaabaha ka dhashay cawaaqib xumana waxa qaadaya dabcan mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya arrimahaasi ku kacaya aad iyo aad ma